السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحين بلابي دونا موضوع امتحانات كاسون كغا هادلي دونو حنانك لو دياري امتحانات. xidmadda imtixaan diyaarinta sidee loo diyaariyaa imtixaan kasta oo waxbarashada la xiriira hantida ugu weyn ee ummadda Soomaaliyeed ay haysato ayaa ah maalgashiga daayirta soo koraysa oo loo diyaarinayo inay soo kordhiyaan isbedel iyo horumar iyadoo la raacayo habab kala duwan oo lagu dhiirigelin karo maankooda iyo maskaxdooda korna loogu qaadi karo heerkooda aqooneed. haddaba waxaad u baahan tahay inaad raacdo hababka ugu wanaagsan ee aad guulka ka gaari kartid kaasoo afka qalaad lagu yiraahdo the best way to achieve success iyo inaad aqoon u leedahay hanaanka loo diyaariyo imtixaanaadka. waa inaad aqoon u leedahay farsamooyinka imtixaan diyaarinta kaasoo afka qalaad lagu test preparation. haddaad horay u taqaanay iyo haddii aadan horay u aqoonba waxaan halkan ku soo gudbin doonaa farsamooyin cilmiyeysan oo wax badan ka bedeli doono hab diyaarintii imtixaanaadkaada. hubaal inaad la kulantay imtixaanaad isdaba joog ah dugsigaaga dhexe sare iyo jaamacadda. bilaab aqooneedka ku biiridda dugsiga ama jaamacadda ayay tahay inaad xil adag iska saarto duruusta lagu siiyey akhridooda. muhiim ma ahan inaad fahamto xarf waliba, iskana ilaali marka aad wax akhrinayso inaad istaagto raadisana dictionary. muhiimaddu waa faham guud, ogaatana halkay ka bilaabatay iyo halka ay ku dhammaato. badi qoraalka samaysa buug gaar ah ereyga kugu cusub si aadan ugu jahwareerin akhrinta duruusta. ha ku akhrinin buugga qolka jiifka ah, goobaha bulshada la tag goob ka baxsan, waqtigaaduna ha ahaado mid isku dheela tiran. haddaba arday, marka ugu horeysaba qorshay waqtiga aad wax akhrinayso adigoo ku salaynaya maadooyinkaaga, sida adigoo isku qaybinaya maalmaha iyo maadooyinkaaga. tusaale ahaan, haddii imtixaanka maalinka la gelayo ay ka harsan tahay 4 isbuuc, maadooyinka aad barato haddii ay yihiin 7 maado, isku qaybi halkii maado waxaa ku daraasayn kartaa 4 maalmood. sidaas oo kale waxaad u baahan tahay inaad ogaato halkii maado imise cutub ayay ka kooban tahay. haddii halkii maado ay ka kooban tahay 12 cutub, maalinkii waxaad daraasayn kartaa 3 cutub. cutubku waa jabtar. qofku waa inuu samaystaa qorshe cad uu raaco inta uu akhriska ku jiro maalin waliba, waxa uu akhrinayo, xilliga uu akhrinayo iyo inta saacadood uu cashar kasta akhrinayo. hana ilaawin qorshahaaga inuu ka mid ahaado layliyo, imtixaano yaryar iyo tijaabooyin aad adigu iska qaadayso mar kasta oo aad cashar akhrinta dhamayso. marka adigaa garan kara sidaad u qorshayn lahayd imtixaankaaga. tusaalayaashani waxay ahaayeen meel ugu yaran aad ka tusaale qaadan karto. isku diyaari safar gaaban oo ku salaysan maalmaha imtixaanka aad gelayso iyo maalmaha ka horeeya ee aad ku jirto diyaarinta. sahayda aad ugu tala gashay inaad kaga gudubto cabsida, walwalka, murugada iyo guuldarada kaaga imaan karta imtixaanka iyo ceebaha kuu horseedi kara inaad ka hoos marto qayrkaaga. samey diyaargarow fara badan maalmaha imtixaanka ka hor adigoo diiradda saaraya imtixaanka, hoostana ka xariiqaya meel kasta oo nuxur ku jiro adigoo adeegsanaya qalinkaaga. marka waa inuu qofku yaqaanaa habka uu ugu diyaargaroowayo nooca imtixaanka ee sugaya. sidoo kale qofka imtixaanka gelaya waa inuu ku talagalaa qaabka uu imtixaanka ku imaanayo inuu yahay qor, dooro, sharax iyo wixii la mid ah. haddaba fiidiyooga labaad waxaanu kaga hadli doonaa habka loo diyaariyo casharada ee la socod wanaagsan.